أيامك تمضي لكنك ذاكرة تبقى، أسرار تلتحف العمق نسألها فتثير الشوق، نبحث عن أكثرها صدقا، نسألها فتثير الشوق، نبحث عن أكثرها صدقا، وعسانا أن نحدث فرقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada barnaamijkii halyeeyada islaamka. barnaamijkan qaybta koowaad waxaynu kaga warrami doonaa taariikh nololeedkii halyeeygii usoo halgamay diinta islaamka looguna magac daray khaliifkii lixaad ee muslimiinta. weligaa ma maqashay khaliifka lixaad ee muslimiinta? haddii aad maqashay ma carab buu ahaa mise afrikaan? su-aasha iyo su-aalo kale oo badan doonaa kaga xog warrami doonaa barnaamijka gudihiisa. kusoo dhawaada barnaamijka oo idin kala baxo. Yusuf ibn Tashfin wuxuu ku dhashay dhulka loo yaqaan Saxaraha Morocco taariikhdu markay ahayd 1900 miilaadiga oo ku beegan 400 hijriyada, wuxuuna dhintay taariikhdu markay ahayd 1106 miilaadiga oo ku beegan 500 hijriyada. sidoo muuqatana Rabbi wuxuu siiyay cimri dhan hal qarni oo dhammaystiran. Yusuf wuxuu ku barbaaray waxna ku bartay bartanka Saxaraha, isagoo ku hoos barbaaray wax ka bartay culimada islaamka ee waqtigaas, gaar ahaan imaamkii weynaa imaam Cabdillaahi ibnu Yaasiin, Allah ha u naxariistee. Yusuf ibn Tashfin wuxuu sidoo kale si xeel dheer u bartay hababka dagaalka ee waqtigaas iyo siyaasadda sharciga ah. saynu wada fahnay deegaanka iyo xaaladdu sida ahayd waqtiga uu dhashay halyeeyga mujaahidka Yusuf ibn Tashfin, Allah ha u naxariistee, waxaynu dib ugu yara noqonaynaa sida uu xaaladda iyo wadcigu ahaa waqtigaas. markii ay bilaabantay faafinta diinta islaamka ee ku aadan waqooyiga Afrika ee hogaaminayeen asxaabtii sharafta mudneed, Allah dhammaantood Allaha ka noqday, faafintaas oo iyaga gadaashoodna ay sii wadeen taabiciintii, waxay soo gaadheen dhulalka waqooyiga Afrika. dhulkaas oo ay ka mid yihiin Liibiya, Morocco, Tunisia iyo Algeria. dhulkaas qaybo ka mid ah waxay gacanta ugu jireen dowladdii kiristaanka ahayd ee Rum. dhulkan waxaa deganaan jiray qabiilo waaweyn oo ilaa haatan degan, loona yaqaan Barbar amase Amaasiiq. qabiilada waaweyn ee Amaasiiqda loo yaqaano waxay bilaabeen inay diinta Rabbi soo galaan iyagoo koox ah oo aad u fara badan, waxayna ka tegeen wixii gaalnimo ah, caabudistii sanamyada iyo ku dhaqankii dhaqanadoodii jaahiliga ahayd, waxayna qaateen oo beddesheen diinta islaamka ee nuurka iyo raxmadda badan, taasoo wax badan ka beddeshay noloshoodii. dhulkan oo teedsan dhul aad u ballaadhan laga bilaabo Liibiya ilaa laga gaadhay badweynta Atlanta waxay ka tirsaneed khilaafadii Umawiyiinta. dowladda Umawiyiinta gadaashoodna waxay ka tirsanaayeen khilaafadii Cabbaasiyiinta. Cabbaasiyiintu markii la wareegeen xukunkii dowladda islaamka muddo kadib waxaa saameeyey dacfi aad weyn. dacfiga ama itaaldaradii saamaysay dowladdii Cabbaasiyiintu waxay sababtay inay kala googo iyo kala jajab ku yimaada dhulkii Saxaraha ee Afrika ee dowladdaasi ka talin jirtay, iyaga oo ay soo shaacbixeen dowlado yaryar oo midiba dhul sheegato. dowladaha ay ka mid ahaayeen dowladdii Aqaadiba, dowladdii Adaarisa, dowladdii Khawaarijta, dowladdii Faatimiyiinta ee Shiicada ahayd iyo dowladdii Rustum. haddaba qabiiladan waxay ahaayeen qabiiladii ugu horreeyay ee dhibaatadaasi saamayso, way kala googo-een oo u kala jabeen dowlado yaryar oo daciif ah. sidaa awgeed waxaa istaagtay waxbarashadii diinta islaamka. kadibna waxaa dhacday inay yaraadaan culimmadii diinta islaamka faafinaysay. intaas kadibna waxaa dhacday in jaahilnimadu saamaysay dhul badan oo si tartiib ah ay ugu noqdeen dhaqamadoodii. sidaasi ayay ku jireen ilaa ay soo baxday dhaqaaqii loo yaqaanay muraabidiinta oo la aasaasay sanadu markay ahayd 443 hijriyada oo ku beegan 1052 miilaadiga. waxaana aasaasay imaamkii weynaa ee Cabdillaahi ibnu Yaasiin, Allah ha u naxariistee. Cabdillaahi ibnu Yaasiin wuxuu ku faafiyey dadkii Amaasiiqda ama Barbarka ahaa diinta islaamka mar labaad, waxaana uu dheg taagay oo raacay dad aad u yar, wuxuuna la aaday tuulo ku taalla webiga Niger dhinaceeda. wuxuuna ka dhisay meel uu dadka cilmigana ku baro, sidoo kalena lagu cibaadaysto. sidaa ogeed ardaydiisii waxay ku faafiyeen diinta ay xambaareen tuulooyinkii ku xeernaa. dadkii waxay diintii ugu soo laabteen iyagoo koox ah oo way soo bateen maalinba maalinta ka dambaysa ilaa ay gaadhay 2000.
sidoo kale cabdilaahi ibnu yaasin wuxuu ku siin jiray duruustooda si waaqici ah oo barasho iyo tababarnimo ah sida loo faafiyay diinta islaamka. intaa kadib wuxuu cabdilaahi ibnu yaasin go'aansaday inuu meesha ka saaro oo baabi'iyo shirkiga iyo wataniyadda ay dadka ku xeeran ay ku jireen. cabdilaahi ibnu yaasin wuxuu raadsaday inuu helo cid taageero u noqota, wuxuuna helay qabiil lamatano loo yaqaan suldaankoodii ama amiirkoodii oo magaciisa la odhan jiray amiir yaxya ibnu cumar almatoni oo aaminay afkaarta uu aaminsan yahay sheekhani. dhaqdhaqaaqii wuxuu isu beddelay xarako ama urur jihaadoon ah oo faafinaya diinta islaamka iyagoo xambaarsan laba hadaf ama se ujeedo. waata koowaad in diinta islaamka la faafiyo lana soo celiyo tawxiidkii oo meesha laga saaro shirkiyada iyo dhaqanadan diinta laga dhigtay. waata labaad in dalka la mideeyo oo meel la isugu keeno. waxay socotaa horumarka ballaadhan ee ururkani ku tallaabsanayay, waxaana nasiib xumo rabbi oofsaday amiirkii yaxya ibnu cumar almatoni allaha u naxariiste sanadku markuu ahaa 447 hijriyada, waxaana dhaxalkii la wareegay walaalkii abubakar ibnu cumar almatoni oo halkii kasii anba qaaday shaqadii walaalkii, wuxuuna abubakar ka dhigtay hogaamiye ciidamayd yuusuf ibnu taashmin almatoni oo ah hogaamiyahaynu ka sheekayn doono haddii aan leedha xalqadaha soo socda. yuusuf daadiisu waxay ahayd marka uu xilka la wareegay 48 jir. بين أيادينا أحداث تتحرك فينا صنعنا عبرات دولا أثرات. intaas maanta waxaynu kusoo koobaynaa qaybtii koowaad ee barnaamijka. إن شاء الله ويك تنباين هلك كسيابا قادتونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صفحاتك بين أيادينا أحداث تتحرك فينا صفحاتك بين أيادينا أحداث تتحرك فينا صنعنا عبرات دولا أثرات نقشا صورا نحتاجك يا تاريخ.